hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa u diiday xarunta madaxtooyada ee maamulkaasi inay tagaan saraakiil ka socotay dalka Itoobiya kuwaasoo doonayay inay la kulmaan Axmed Madoobe. saraakiishani ka socotay Addis Ababa ayaa laga hor istaagay inay galaan madaxtooyada maamulka Jubbaland ee magaalada Kismaayo halkaasoo horay ugu qaabili jiray Axmed Madoobe saraakiisha Itoobiyaanka. saraakiishani waxaa la sheegay inay iskugu jireen xubno ka tirsan hoggaanka ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS fadhigooduna uu yahay deegaanada maamulka Jubbaland kuwaasoo horay ula kulmi jiray Axmed Madoobe marka laga wada hadlayo xaaladaha amni ee deegaanada maamulka Jubbaland iyo shakhsiyaad kale oo ka soo kicitimay magaalada Addis Ababa qaybna ay ka yihiin qaar ka tirsan sirdoonka dalka Itoobiya kuwaasoo la dareensan yahay inay doonayeen dana gaar ah oo ay kala hadlaan hogaamiyaha maamulka Jubbaland. saraakiisha Itoobiyaanka ee soo dhex mara howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ayaa horay si joogta ugula kulmi jiray Axmed Madoobe balse inta badan waxaa kulamadaasi diiradda lagu saari jiray dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo sidii loo xoojin lahaa amniga deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada Itoobiya ee gobolada Jubbaland. ciidamada Itoobiya ayaana horay kaga baxay fariisimo ay ku lahaayeen deegaanada maamulka Jubbaland taasoo qayb ka bixitaanka howlgalka midowga Afrika ee ATMIS oo la filayo in guud ahaantoodaba ay dalka faaruujiyaan dhammaadka sanadkani 2024. maamulka Axmed Madoobe ayaa sidoo kale xaduud la leh waddanka Itoobiya waxaana deegaanada xaduud ka jooga ciidamo ka tirsan militariga waddanka Itoobiya kuwaasoo saraakiishoodu ay horay si joogta ugala hadli jireen xaaladda amni iyo wada shaqaynta hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland. ila muhiim ah oo ku dhow madaxtooyada maamulka Jubbaland ayaa inoo sheegay in socdaalka saraakiisha Itoobiyaanka ah ee haatan uu daaranaa dana gaar ah taasina uu horay kaga sii warhayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe sidaasna uu ku diiday in ay yimaadaan madaxtooyada iyadoo loo sheegay saraakiishaasi cudurdaar aan jirin si ay dib ugu laabtaan. wararku waxay kaloo intaa ku darayaan in saraakiishani Itoobiyaanka ah oo ay ku jireen xubno ka tirsan sirdoonka dalkaasi in qorshaha socodkoodu uu ahaa in ay kala hadlaan hogaamiyaha Jubbaland arrimo quseeya xiisada haatan ka dhex aloosan wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya xilli Addis Ababa ay raadinayso sidii ay u kala fogeyn lahayd maamul goboleedyada iyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama ay arrintaasi horay ugu guuleysatay Puntland. hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaana hadda ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ee aadka ugu dhow dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo uga soo go'ay filla Soomaaliya saaxiibtinimadii kala dhaxaysay hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni kaasoo hadda ay aad u kala fogaadeen isaga iyo dowladda dhexe. Itoobiya oo bilowday qorshe ballaaran oo ay ku kala durjinayso madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaa hadda ay diiraddeedu saaran tahay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxaana saraakiishaasi la tuhunsan yahay inay doonayeen si ay ugala hadlaan Axmed Madoobe arrimo quseeyaha qorshahaasi uu wado ra'iisul wasaaraha Itoobiya.